Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaynu booqannay masaajidkeennii Masjidu Sunna ee ku yaallay xaafadda Xiraawr. Waa xalay la furay, isla markaana maanta lagu tukanayo salaaddii Jimcaha. Maasha Allah, masaajidka aad iyo aad baa loo qurxiyey, dhisay fiicanna waa loo dhisay. Qaybta aynu imika soo dhaweynay waxa weeyaan qaybtii macadka ee marka ardaydu ay wax ku baranayeen. Maasha Allah, marka waxaynu geli doonaa qaybihiisa gudaha iyo sida loo qurxiyey. Masaajidka dhisaan aad iyo aad u qurux badan baa loo dhisay. Muuqaalkiisa guud aad iyo aad u qurux badan yahay. Qaybtiisa gudahaynu geli. Maasha Allah, xaggana waa xaggii weysada, waa dhinacii weysada. Halkaasi waa dabaqii sare. Halkani waa halkii dabaqa sare laga korayey, dhinacana waa dhinacii weysada. Marmar yaroo waxaa la dhigay aanu aad uga muuqanaynin waxyaabaha soo gaadha meesha weysada. Marmarka kalarka iskale. Xaggaasina waa xaggii suuliyadii iyo qaybtii xamaamka weeyaan. Maasha Allah, qaybtana waa gudihii. Qaybtiisa guduhuna aad iyo aad baa loo qurxiyey isadana. Waxaa la dhigay roog akhtar oo indhaha u roon. Qaybaha tiirarka ku yaal oo kale waxa weeyaan meeshii la saarayey kutubta. Saa idinka muuqata. Masaajidka mixraabkiisa iyo qaybta imaamku gelayay iyo qaybta khatiibka ee khudbadda lasoo fulay labadaba aad iyo aad baa loo qurxiyey. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Runtii aad iyo aad baa masaajidka loogu farayareystay. Halkaasi waa halkii sheekhu mixraabkii iyo meeshii uu soo istaagay khatiibku oo ka khudbadaynayay. Qaybtana waa qaybtii sare ee xagga sare dusha. Marka mixraabku isugu isku wada joogaa. Qaybtiisaasi way isku wada joogtaa ilaa xagga sare ilaa dabaqii hoose ilaa dabaqii sare way isku joogtaa. Halkaasi waa fiktii sare dabaqa ee mixraabka ku beegnayd. Maasha Allah, halkaas aad dushaad ka arkaysaan halkii imaamku soo fuulayay ama khatiibku. Qaybtaasina waa qaybtii dadku ay ku tukanayeen. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Masaajid waliba masaajidku ka dambeeyo kasii qurux badan yahay. oo masaajidadii caalamka iyo masaajidadii dhulka carabta ku yaallay oo kale ayaa innagana magaalooyinkeennii laga dhisayaa oo lasii horumarinayaa oo casriga iyo waxay la socdaan qurxinta magaalooyinka iyo caasimadaha la qurxinayo. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Runtii indhuhu marnaba kama jeedsanayaan quruxdiisa iyo qaabka cusub ee loo dhisay. Waa qaab aad iyo aad u qurux badan. Isla markaana aad jeclaysanayso daawashadiisa. Maasha Allah. Madhow sheekhi baa inoo iman doona inooga khudbadayn doona. Maanta Sheekh Barbaraawi baa ku qoran. Isla markaana khudbadda inoo geli doona. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Runtii masaajidka innaba quruxdiisa lama soo koobi karo. Weli dad badani ma imanin oo annagaa hore u yar tagnay. Laakiin dadku way soo badan doonaan. Qaybahana waa isagoo dadkiina ay soo bateen. Laydhkiina la shiday. Markii hore masaajidka laydhkiisu muu shidnayn. Laydhkii baa la shiday oo kamaradihii iyo waxaa lasii rakibayaa qashaafadihii hadhowtoona la shidi lahaa sheekha marka muxaadarada laga duubayo ayaa lasii shiday. Masaajidka laydhkiisiina wakaa laambadihiisii waa la wada shiday. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Maasha Allah, qaybtana waa qaybtii kutubta oo kutubta lagu gurayaa. ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم واشكروه على نعمه يزدكم ولا تكفروا فيعذبكم. أيها المسلمون عباد الله، إلهي الله سبحانه وتعالى كبحيي نعم كثيرة يقوى الدنيا وما بكم من نعمة فمن الله وحوالي وحن نعمة هيستاه أما تكسرته من درسته يمن كرما. إلهي الله سبحانه وتعالى إذن سيئي وحكي السائق التبي. قال إلهي سبحانه وتعالى بحيان الله مهلا
واجب هو الله سبحانه وتعالى إلا أقنصره ونعم كيسنا ووقر ووقريه إلهي نعم كيسنا وأمانة هي واجبة ولغشة مدعيدي سوالأسن هي صفات كيسنا ما يسكتران وحواجب إلهي نعم كيسنا ولغمها النقع عمل صالح وهو يا إلهي ترى التي سيلكته وحيرها يا دومها وديدنا دومه إلهي ترادي للدايان إن إلهي سبحانه وتعالى له أدنى السماء دينتي صلوا رحمه اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم عافنا في أبداننا وأسمائنا وأبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اهد ضالهم وعلم جاهلهم وانصر مظلومهم يا أرحم الراحمين وعاف مبتلاهم اللهم عاف مبتلاهم يا رب العالمين واشف مريضهم وارحم موتاهم اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح بلادنا اللهم سلم بلادنا من شر فتنة الانتخابات اللهم سلم بلادنا اللهم أخرجنا من فتنة الانتخابات سالمين يا رب العالمين بديننا ودنيانا إلهي فتنة هي الشركة دور الشرين كان أيامه إلهي نقبل إلهي دينتي هي الدنيا نقبل إلهي توكيل نقبل والدين نقبل والدينتي هي علمك هي عملك هي صالح إلهي نقبل إلهي مدينة كبال إلهي مدينة خلاف من يخلقك وحاسك كالحمام إلهي والشرع بلدك وكخدمه إلهي نقبل إلهي تقبل لك أن تنوك بدل إلهي تقبل أن تنوك بدل وما لك الشركة دي نباتية دي مسلمة لك الدين تولا هي الدنيا دي نقالها دي نبكلمة دي أخلاقها دي نفت مولا كلها وما أنت ما في سنتين يا مولانا أفضل ما أنت معصي وقرية واجب كنا waxay xumaantii sababtaabteen loo gaado ila mid guuraweye اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين